السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغورين وحنا مانتا ورئيس الله يلانينا فوسي حاجي يوسف حكاياها تعلينتا حسبي وعد iyo Cabdillaahi Umar Xuseen Shaqale oo isaguna xoghayaha xisbiga wacid wadankan UK waxaan jecelahay inaan ugu horeyn ku soo dhaweeyo Foosi bal ku soo dhawo Foosi radio halwanaag aad iyo aad mahadsan tahay Cadaani waxaan aad uga mahad celinayaa website-kan halwanaag oo aan aad iyo aad uga mahadnaqayo sida wanaagsan ay maanta fursad noo siiyeen iyo wararka ay ka tabiyaan wadankii ay la xiriiriyaan daafaha dunida dhan ay wadankii la xiriiriyaan aad waad mahadsan tahay Foosi ku soo dhawow Shaqale adiguna radio halwanaag bismillaahir rahmaanir rahiim Cadaani waa ku dhownahay wixii mahadnaqaha xogayaha dhameeyay Foosi waxaan aad aan ku yar kordhinayaa sida hanaanka iyo habsamida wanaagsan ee halwanaag yaani wararka xaqiiqada ah ay deeno soo gaarsiiyaan aan aad ugu tiirsano marka waa mahadsantiin dhamaantiin baad iyo kooxdaada halwanaag aad iyo aad baad mahadsantihiin labadiinan mas'uulba waan idinka mahad celiyay aniguna sida wanaagsan ee aad nooga aqbasheen martiqaadkii aan idin fidinay ee ahaa waraysigan maanta inaad bixisaan ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Foosi bal ugu horeyn sidoo aragtaa xaaladda guud waa sidee xaaladda guud ee Somaliland mid dhaqaale siyaasadeed iyo amni bismillaahir rahmaanir rahiim waxa xaaladda guud waxa weeyaan imika waxaan ku noolahay adduunyada waxa la yiraahdaa waa tuule yani waa filj waynu ka wada warhaynaa xaaladda guud laakiin si hadii aynu bal hoos ugu sii daadegno wadankeena waxa aad moodaa in uu khatar badan ka soo badbaaday laakiin imika tan taagani ay tahay tension aad u taagan oo uu burburi gaaray hay'alkii dawladnimo iyo hay'alkii maxaan ku raday baarlamaanka iyo wixii oo dhan bay naga burburi gaareen taasna waxa u sababa dawladda maanta ka talisa Somaliland oo aan ku dhaliilayno khataraha ay gelinayso dadweynaha ay gelinayso wadanka aan vision dheer oo la arkaa aanay jirin oo wax laga sii tashaday wax walba quick fix ay ku socdaan markaynu ka eegno xagga amniga markaynu ka eegno xagga dhaqaalaha marka aynu ka eegno xagga environmentka marka aynu ka eegno xagga maxaan ku raday waxbarashada oo aan ka soo jeedo waxna ka oran doono hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan halkaa wax ka sii weydiiyo dawladda nimika Somaliland ka arrimisa wax badan oo ay qabatay baa jirta oo haday noqoto aad waxa tahay xogay tacliinta oo kale dugsiyada waxa ka dhigtay bilaash dugsiyada hoose iyo dhaxaba maxaa la yiraahdaa wadooyinkii dib u sameyn habeentoodii iyo dib u dhiskoodii bay ku jirtaa waxyaabaha soo dhan iyo arrimo kale oo jira in lagu amaano miyaanay mudnayn xukuumaddan imika jirta ما يفرت كل يبقى نجمع للناي قرينا هذا نحس بجوعدنا هاي ماها معارض منهين وحدمية وحنا هاي معارض وحدسة وحي الدولة السميسية وحي اللائف مضي وحي لقى فيلي أنا جبرتها دينا لدورتنا وحي أبها أنا لقى فيلي إما كان هذا دكتور مانيفست يدي أما وحي أبيه أنا كبر لنقادني مركي أنا قليني أنا دورشة قليني واحد شري واحد ليلة 2020 مشروع ليلة بكتير شري مشروع عاصوها بقولك يلا بعتنين عن تعليم توحكة قبرنا لقالها وطنا كسوقلها بقولك يلا بعتنين عن نقول دقنو تعليم ته بقولك يلا بعتنين عن نقول دقنو لقالها مثل لقاله إنه كحولين حولها environment كا بيرها حولها بقولك يلا بعتن إنه يكون بحان مركا فيشن كاس وحوها إمك ودمه هرو سوكرية وإنه قرنا إمك ودمه الرول موديل كان نقرناها وها كمدا ودن كماليزيا أو كله ماليزيا إمك ما أنت UK أرضية وجوب بدن ماليزيا كيمة أنا هكذا وحكبرتها ودنكو ماليزيا وحوها وإنه قرنا الناس ديتناتكي ما أنت نوا ودم ماذا وجو هيكسنا يبين النقدان ودم ماذا هراء مركا وحويا وح أنه فيشن كي أنه لقينا long term plan كي أنه لقينا ولي ماشي بياله حاجة تعليمته إما كان مركا ندب صانع قلنا تعليمته أعرف كل فتاة عدان إن هرت منهج مديسن مجرو أو منهج وده مديسن أو maxaan ku dhaday ma jiro oo wasaaradda tacliintu ay leedahay ardayda sabuurad wax looguma dhigay wax loogu dhigaa buugaag baa loogu dhigaa
buugaagta loogu dhigayo waa laga iibiyaa waxa iska iibi dukaan waxa ka iibiya iskuuladii baa ka iibiya imtixaanada $1 baa laga qaadaa marka imtixaan laga qaadayo maxaan ku raday visit haday tagayaan oo ay matalan tagayaan maba tagaan inta badan haddii magaalada koonaheeda la soo tusayo waxa laga qaadaa lacag baabuurada ay ku tagaan lacag baa laga qaadaa marka danyarta imika ninka danyarta qofka dadka danyarta oo wadankeena odarta shaqaalaanta ka taagan sideebuu hadduu 3-4 caruur dhalay sideebay iskuul ugu hayn karaa ayaa la isweydiinaya annagu bilaashkan la sheegayo waxa daba socda waxa kale oo aan ka iloobay marka jaamacadaha la galo jaamacadaha semesterkiiba waxa laga qaadaa $250 ayaa semester walba laga qaadaa marka waxaas oo dhan la isu geeyo ma afoori karaan dadkeenu waxay kari karaan maaha dadka danyartii in lacag inta leega dul saaro dawladuna ay ku faanto oo ay meel walba ka dhaadhiciso fasax baan ka dhigno waxba bilaash baan ka waa si wanaagsan foosi waxa tiri wasaaradda waxbarashadu manhaj midaysan ma laha bal waxaan jecelahay halka yar dul istaagtay faahfaahisi manhaj midaysan marka aynu ka hadlayno waxa weeyaan mas'uuliyadda ugu horeysa waxay saaran tahay wasaaradda waxbarashada waxa ay ka saaran tahay ilaa marka malcamad quraanka la galayo ilaa marka la galayo maxaan ku dhahay kindergartenska carruurta la soo korinayo oo waxyaalaha balaaniska annagu aanu dhiganay bay ka mid tahay in horta la eego bal imika carruurteena ayaa malcamadaha u dhiga waxay dhigtaan maynu ognahay in xag jirnimo la geynayo maynu ognahay miyaynu ognahay diinta sida loo barayo ma ogin waxyaabaha annagu aanu doonayno inaanu haddii la idhaha wax ka qabanno waxa ka mid ah in aanu carruurta ku bilowno marka ugu horeysaba annagoo oo ka duulayno dhaqanka iyo diinta islaamka ee aynu haysano inaynu labadaa ku soo abaabino number 1 wadaniyadda ayaa noo xigta imika taariikhdii wadanka lama qoro oo iskuulada laguma dhigto waa dhaliilaha ugu waaweyn ee ay leedahay dawladdu waxa weeyaan lama dhinay garayn karo oo lama diidi karo maxaan ku dhahay taariikhda wadankaagu leeyahay waxyaabaha qofku baraab ku noqon karo carruurteena inaynu barra tahay wadanimada imika aynu laanayn dadkii nin waliba uu goonida u xoogsanayo waxa weeyaan jiilalka soo socda aynu wax ka baraa wadanimada wax ka baraa diinta wax ka baraa maxaan ku dhahay dhaqanka wax ka baraa taasa keenaysa in society aynu helo mujtamac caafimaad qabo oo keeni doonayna waxaan u gudbi doonaa shaqale idinka xisbigiina wicid inta badan xukuumaddu waxay ku dhalishaa inaad maaragtay dhalishaan oo aad iska indhatirtaan waxyaabaha ay dawladdu qabatay teeda kale waxay idinku dhalishaa inaydan barnaamijyo aydan soo bandhigin laakiin aad ka hadashaan inta badan madaxtooyada sida madaxweynaha sidana arrinta maxad ka horeysa bismillahi raxmaani raxiim waad mahadsantahay caddaan su-aashaada wanaagsan waxa weeye niyahow xisbiga ucud waxa somalilan u siisay sharci inuu mucaarid noqdo mucaaridkuna sidaa xoogayuu sheegay dee ka waxduminaya manihin anagu laakiin mushkiladii baa waxay tahay maanta xisbiga kulmiya halkuu gaadhay markii udub hayay cid gaadhsiisay ama ula hadashay midna ma jirto iyagu maanta hadal bay xijin kari laayihin laakiin xisbiga kulmiya waxay ula tageen budhadh udub kulmiya markuu mucaaridka ahaa budhadh buu ula tegay hagee ka dhaceen budhadhkaasi dee magaalada hargeyso budh baanu kaaga soo saari bay ku yidhahdeen kursiga madaxtooyada soo maad garan cidina may odhan iyo kuwan laguma odhan imaka waxaa la leeyahay waxani waa wax qabta halkan waxba kamaydaan qaban 2,000 oo dhagax baa wadooyinka dhulkii ka buuxiseen midna lama bilaabin iminka galbeedka haddaad eegto dadku iyagaa dhistay wadooyinkii beelaha iska ururiya lacag islaamahoodii iyo carruurtoodii masaakiintii wixii la siin lahaabay u horay wadooyinkii inay samaysato dawladdu inta halkaas soo taagtay umay mahadnaqin oo may odhan reer hebel ama gobolka cidda degtaa maasha allah waday samaysteen mar qura may odhan wadooyinkii dadku samaysteen bay leeyihin annagaa samaynay laakiin iyagu sow kumay hagaajin oo kumay hanuunin inay dadku sidan u shaqaystaan hadday ku hanuuniyeen maxay tii reerku bilowday oo aan dhammaanin maxay mid kale uga dul bilaabeen teebahay taasi dee masalan imika wadadan tagtisa laxley dee dadku iyagaa lacagtooda la baxay ilaa qurbaha ilaa adduunka o dhan bay ka soo gureen dawgacad markay dhammaysteenna dee dawladdu waxay ku faantay inay kala qayb gashay waana mid cado iyagaa adduunka o dhan baa inay iska gureen lacag ay samaysteen kan burco ee ceergaabo
والعروتي اللي يسكول اللي قال سبعة دولار كم ساعة كنت جاي لا كان أكيد إذا ولا غير يسكول كي waayahay arrintaas waxaan doonaynaa balalkaa siira guda gallo maalin dhaweytole waxaynu ka aragnay telefishinada afka Soomaaliya ku hadla iyada oo loo keenay iyo warbaahinta Soomaaliland maxalliga ay qortay in qalabkii wadada Cerigaba lagu dayactirayay uu yimid qalab aad u tiro badan arrintaas miyaanay muujinayn in dawladda ka go'an tahay in ay arrintaa wax ka qabato hadaan midaan ku sheego waxa weeye de horta qalabku muqdisho kama soo degaan barbari ka soo degi lahayn oo dalkeeyo dekedeendiyay qalabkan waa qalabkii airportka lagu dhisayay oo xagga loo wareejiyay qalab cusub oo dibad ka yimi ma aragna anagu ilaa dekedaas umadu ku arki lahayd waxa soo degay marka waxa qalabkii Djibouti soo maray wadada soo maray qalabkii airportka buuha qalabkii airportka loogu soo talagalay buuha qalab meesha ka soo degay dekada cusub oo lacag la geliyay ma jirto waxa uu daliila xalay oo dambeysay xafladii lagu qabtay Hargeysa waxay ku cadeynayeen inaanay wali lacagtii hawshan lagu bilaabi lahaanay soo dhamaanin marka qalabku xagee ka yimaadeen yaa laga filay lacagtaas inay soo dhameeyaan anigu sida filayo kulli horta shicibka ugu badan dawladuna dadka way u aamusto waxay doonaysaa markay soo wada xareeyaan inay yiraahdaan oo inta yar baan ku darro deedna hawsha waan galeynaa una malayn maayo inay wadadaasi inta dawladdan kulmiye joogto inay hirgelayso waxaan filayaa in dawladdu ay dhamaystiri doonto insha Allah waayo shaqalaad baad mahadsan tahay waan ku soo laaban doonaa waxaan jecelahay inaan su'aal kala weydiiyo Fosi oo ku saabsan arrintii baarlamaanka dhawaan Fosi kol arrinta aad baa looga hadlay haday noqoto mucaaradka iyo muxaafidka iyo cid kasta dhawaan shaqa khilaafkii golaha wakiilada shirgudoonka Soomaaliland gaar ahaan wala soo gabagabeeyay guurtida Soomaaliland baa ayaa soo dhex gashay isagoo waliba markaasi garwadeen waxa xubnahaasna odayga Soomaaliland ugu daawada weyn Xaaji Cabdi Kariim Xuseen Xaaji Cabdi Waraab bal waa sidii aragtidaada sidii ay u dhaceen go'aankaasi sidoo aragtaa wallahi go'aanka waxaan u arkaa go'aan waxyaabihii lagu burburinayay Soomaaliland inay kamid ahay ay qayb weyn ka ahayd baarlamaanku waxa weeyaan kii aynu dooranay waxa weeyaan kii check and balance ka sameyn lahaa waa kii sharciga inoo dejin lahaa laakiin se marka baarlamaanka dawladdu ay soo gacan ku leedahay ay soo dhex gasho waxay muujinaysaa in wadankii uu burburayo haykalkii dawladnimo in laynaga diminayo waxa aynu arkaynaa maanta baarlamaanka horta ma u shaqeeyaa sidii baarlamaanadu u shaqeyn jireen adduunyada weligeen intaynu noolayn maynaan arag baarlamaan keena motion keena oo yiraahdo duuduuban ku ansixino weligeed waa taariikhda markii ugu horeysay baarlamaanka laftiisa dhaliilaha aan u hayo waxa laga doodaa qofka parliamentarianka ka doodaa waxaasi dan ma u yahay wadanka oo wadanka dan ma u yahay aniguna waan ka dooday imika hadaynu laba nin oo baarlamaanka aan nahay mooshinka la keenay wadanka advantage uu leeyahay wuxuu leeyahay dan buu yahay waxyaabihii mudarrada uu leeyayna waa sheegaysaa deedna meel dhaxal ay isugu yimaada weligan mayna arag horta mid saa lagu ansixiyo la duuduuban ku ansixino ka isaga halkaas kaga haraya khilaafku markaan soo noqdo iyo su'aashaadii waxa weeyaan Xaaji Cabdi weligii joogi maayo qof walba ilaahay waqtigiisa uu qoray maanta waa 117 buu maalintii loo taqarta Xaaji Cabdi kala halkeen looga helayaa maalin walba hadii aynu soo socono way khilaafka waxaan u arkaa in dawladdu gacan weyn ku lahayd kiwi ka footeeyay 42 ka dhigay dhowr maalmood ka hor ayaa markii dambe doonayay inay gudoomiyaha baarlamaanka ridaan taasi waxay ku muujinaysaa sidii loogu shirayay meelaha qaar sidii dawladdu iyo madaxtooyadu ay gacanta weyn uga geysatay taasina waxa weeyaan hadii uu burburo haykalka dawladnimo dawladdu dhan bay naga burburaysaa marka ayaanay u qaadanin dawladdu aanay u qaadanin inay baarlamaanka burburin karaan iyaguna ay joogi karaan way wada burburayna ama waynu dawladdu wasaaran arrinta fargelinta kuma koobnayn oo kaliya dawladda iyo xisbiga kulmiye sidoo kale waxa lagu eedeynaya xisbiga wadan inuu isaguna kaalin weyn ku lahaa maxaa yeelay gudoomiyaha baarlamaanku waa xisbiga wadani gudoomiyihiisa waana xisbiga waana gudoomiyihii baarlamaanka arrintaas isaga laftiisu miyaanu gacan weyn ku lahayn maadaama uu yahay gudoomiyaha xisbigaas horta cidda ka fadhida baarlamantarianka ka fadhiya dee way ugu jiraan laakiin dawladdii shalay tolahayd Cabdiraxmaan wuu fadhii karaa oo labada xisbi labada xil uu hayn karaa ee waxyaabaha ugu qaylada badnayd waxa ugu qaylada badnaa u cid bay ahaayeen
oo laha war constitutional rights uma laha in laba kursi oo ku fadhiyo dawladdu waa tan marka ay doonaysana waxay oranaysaa